waayahay qaybta ugu dambaysa ee qaybihii kala gedisan ay nabadaynu ka fiirinayno aan jecelahay aadan inaan weydiiyo kadibna aan kusoo gabagabayna xagga tale iyo tusaale oo qof walbaan jecelahay inuu markaa soo koobo aadam haddaan u gudbo xiriirka dalka soomaaliya kala dhexeeya wadamada dariska ah badanaa waxaa su-aal ka timaada arrimaha nabadda markay timaado xiriirka arrimaha siyaasadda ama aynu la leenahay wadamada dariska Ethiopia Kenya Djibouti iyo guud ahaanba gobolka idil muhiimad sidee u baahan tahay siyaasad ahaan in laga fiirsado xiriirka wadamada lala leeyahay qaasatan marka loo eegayo xagga nabadda runtii aad iyo aad bay muhiim u tahay innaga taas waxaa inoo sii dheer de waddan kasta wadamada dariskiisa la ama wadamada adduunka xiriir uu la leeyahay laakiin waxaa taas inoo sii dheer haddaynu nahay Soomaaliya in ay wadamada dariskeena waliba saddexda wadan ee dariskeena ah ee Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti oo Djibouti waliba ay ka si uga duwan tahay inay joogaan ciidamo ay leeyihiin oo Amazon marka taas runtii Soomaaliya waxay gelinaysaa boss ama position or disadvantage oo aysan xuquuqdii siday ula gorgortami kartay mararka qaarkood ay wax badan ay xeerinayaan ama wax badan ay celinayso laakiin runtii innaga haddaynu nahay Soomaali waliba dhalinyaradeenna maanta intaynu inagu weynahay waxaa layna kusoo koriyey ama waxaa badan oo laynoo sheegay inaynu u qaadno nacayb dhab ah kuwa kamid ah dariskeena ama wadamada dariskeena siyaasaddii maalintaas ay ahayd waa inaynu baran karnaa inay siyaasaddu tahay wareegto inay maalin inaysan berri maanta aysan ahayn shalay inaysan berri noqonayn maanta inaynu dadka dariskeena ah iyo wadamada dariskeena ah inaynu ka faa'iideysano oo aynu ula dhaqanno sidii darisnimo ahaan ee diinta islaamkuna ina bartay dhaqanka Soomaaliga ee suubanna oo ina barayo caqliga saliimka ah ee bani'aadamnimadu uu sheegayo runtii ka daranta intaasna waxaa inoo sii dheer maanta hadduu dee jiro waddan daris ah oo aan dhowrayno xuquuqdeenna ama ku xadgudbaya qarannimadeenna ama ciiddeenna ama cirkeenna ama baddeenna ku xadgudbaya taas haddaynu nahay Soomaali haddaynan meel uga soo wada jeesan dee markaa innaga dhibaata ina haysa oo taas waa arrin waa national issue waa arrin ummadoo dhan ka dhaxaysa waxaa weerar lagu yahay qaranka Soomaaliyeed marka taas oo kale haday jirto dee waxaa fiican in markaas maalintaas aynu dhihi karno walaalayaal daris buu nahay ehel iyo xigaalaynu nahay dad inaga isugu dhow inaga bariiskeenu hal meel ku wada jira dhibaato ina ma dhex taalo si macquul gal haddaynan arrinta ku dhamaysan karin dee waxa igana leh iiga tag dee ninkii waxaaga adigu aad leedahay oo lagu yaqaanana kugu soo hunguriyay taasna waa arrin ka sii dhib badan laakiin anigu waxaan qabaa runtii siyaasadii ahayd inaynu nabcaano wadamada dariska sababtoo ah dhul Soomaaliyeed bay haysteen sababtoo ah siyaasadii maalintaasay ahayd waxaan u maleynayaa arrintaas inay waqtigeedii soo dhamaaday waa dhul Soomaaliyeed wali baa ku jira wadamadaas waa dad Soomaaliyeed maanta kuma jirno meel aynu raadino inaynu soo xoogno sidaynu isugu daynay bari hore ama aynu soo dhicino marka waxaan qabaa inaynu ka shaqeyno sidii aynu ula darsi lahayn dadkaas 120 ama 100 milyanka Ethiopia jooga oo landlord ah oo aan bad lahayn sida intaynu ugu camirno hobyo iyo garacad iyo seylac iyo berbere iyo dekadaha kale intaynu u camirno aynu halkaa ka quudino aynu landlord noqono aynu soo dhaweyno aynu arigu saasaan qabaa runtii markaas anigu aad baan uga soo horjeedaa dadka runtii kula jira dagaalka wadamada aynu dariska nahay oo taas oo ka soo horjeeda waliba dhaqanka Soomaaliyeed daris wanaaga iyo xeerista iyo sidoo ugu dheeriya waan ognahay diinta islaamku waxay naga fartay waan ognahay aqliga bani'aadamku maanta joogana waxa weeye min 100 milyan ama oo dariskayga Ethiopia ka soo qaadanaya example ka raali ah haddaan iyaga ku dheeraaday oo 100 milyan oo dariskayga haddaan anigu ka faa'iideysan waayo anoo wixii oo dhan aniga ay soo mari karaan taasna waxaan u maleynayaa inay tahay maangaabnimo Soomaalinimo inkastoo aad tiri disadvantage baa jiro ciidamadoodii maadaama ay gudihii dalka ku jiraan saarabti iskagama celin kartid marka waxaan leedahay taasna nabad ay ka qaadan kartaa waxaan qabaa nin toor la soo seexday isaga yaqaanay dhihi jireen Soomaalida maanta inaga inoo taalaaseen u seexan lahayn nimankaasna aynu daris wanaag u tusi lahayn ummadda Soomaaliyeed nabadgelyadeeda iyo qarannimada iyo sovereignty-ga waddankana oo ahaanayo wax oo aan muran laga geli karin negotiation iyo wada hadal laga geli karin haddana inagoo sidaas aynu sameynayno waa inaynu xeeradana xagana ilkeenana badbaadsan haddii ay beedno